haddaba barnaamijkan maanta waxaynu diiradda ku saaraynaa dhaqanka Soomaalida oo muddooyinka u dambeeyay uu ku dhacay isbedel weyn kuna milmay dhaqamada shisheeye sida ay sheegaan inta badan dadka ku xeel dheer arrimaha dhaqanka. haddaba suugaantu waxa ay ka mid tahay meelaha lagu ilaaliyo afka hooyo iyo dhaqanka ummadda Soomaalida. ayga fadhido maanta barnaamijkan aan ku wareysanaynaa si aynu wax badan uga ogaano ama talooyin badan ay uga bixiso dhinaca dhaqanka abwaan Foosiye Axmed Maxamed oo loo yaqaan Foosiye Hormuud in badanna ka tirisay maansooyin badan oo kala duwan dhinaca dhaqanka iyo qaybaha dhaqanka ee Soomaalida isbedelka weyn ku dhacay. Foosiye ku soo dhaw marka hore TV-ga Universal iyo barnaamijka bandhiga. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. cali dahraad baad u mahadsantahay adiga iyo Universal TV barnaamijka bandhiga Universal TV dhamaantiin waan idin salaamaya iyo ummadda daawan doonta labadaba ilaaliya dhinaca dhaqanka ama aad ugu wanaagsanaa dhinaca dhaqanka iyadoo in badan ay caawinaysay bulshada Soomaalida diinta Islaamku ay hayeen ummad Islaam waxaad u malaynaysaa in ay sabab u tahay dhaqankii Soomaalidu uu isbedelo ku milmo dhaqamo shisheeye iyadoo Soomaalidu ay ahayd dad dhaqankooda ku adag. bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal wanaagsan dadkeenu waxay ahaayeen dad reer guuraaya dhaqankeena wuxuu ahaa dhaqan reer miyigaana lagu hayay markii aynu magaalooyinka soo galay isbedel weyn baa ku dhacay waqtiyadan markii ay magaalooyinka soo galeen qayb baa tagtay qaybina waa joogtay markii burburku dhacayna qaybo badan baa lumay qaybina waa sii joogaan marka waxyaabo badan oo markii burburku dhacay nagu soo milmay oo fara badan way jiraan marka isbedelku halkaas uu ka yimi haday tahay habkii wax loo dhihi jiray habkii wax loo xidhan jiray habkii loo guursan jiray habkii loo fikri jiray habkii wax la isu dhaafsan jiray intaba wax isbedel weyn bay nagu dhacay markaad eegto ilbixnimada iyo horumarka iyo maxay tahay tiknoolajiyada casriga ah waa isku si kaba raacna maxay tahay siyaasay isu bedeleen kuwii hore dad reer miyiga ku dhagan dhaqankooda oo dhex jooga oo dhahaya oo dhigaya oo dhaqanaya oo tolanaya oo xidhanaya oo u fikiraya bay ahaayeen la shaanqaad waqtiga jira ayaa dhacay suugaanta Soomaalida waxay ahayd hormuudka ilbixnimada Soomaalida maanta oo dhaqankii in badan isbedelay ma loo oran karaa bahdii suugaantu waxay ka mid noqotay isbedelka iyo burburka ku dhacay ee dhinaca dhaqanka bulshada Soomaalida. wallahi ma suugaantu waa la hayaa suugaantuna waa taagan kii ugu horeeyay kii ugu dambeeyay wixii lumay mooyaane wixii kale way socdaan laakiin fahanka dadka iyo wacyiga jira ayaabay imika ku xidhan tahay waayo qofkii markaad suugaan adag imika ku soo qaado ma fahmayo luqad kale oo kale ku noqonaysa marka waxay ku kalifaysaa inuu khafiifiyo hadalkii haday heesti tahay heesti la dabciyo waayo da sharax badan bay u baahnanaysaa gabay haddaad ka hadlaysaa ama buraanbur ka hadlaysaa ama geeraar ka hadlaysaa waxay noqonaysaa inaad jilciso halka ugu jilicsan ka soo qabato way ma fahmayaan dadka bulshada imika waliba dhalinyarada u badan marka dhaqan laga hadlayo dhaqanku wuxuu ka kooban yahay qaybo badan guud ahaan dhaqanka hadhow baynu sii furfuri doonaa oo qodob ay soo dul taagi doonaa aan doonaynaa inaad bulshada u soo gudbiso gabay ama maanso aad ku tilmaamayso qiimaha uu lahaa dhaqanka Soomaalidu iyo isbedelka maanta ku dhacay dhaqankii Soomaalida si dhalinyaro badan ay ugu baraarugto in bulshada Soomaalidu ay ka mid tahay bulshooyinka caalamka ugu dhaqanka wacan. wallahi de way jirtaa maanso yaro gaaban oo badnayn taasoo aan isbarbar dhigayo dhaqankeenii hore in kamida iyo dhaqanka maanta jira marka waxaan dhaqan baynu leenahay iyo dhaxal awowgeen dhilcaana culan iyo dhayba la soo dhamay dhar waxa la xiran jiray saddex qayd dacliya boqor hablo dhowrsan baa jiray aaba dhaahiyaa jiray hooyo dhaabta baa jiray gobonnimo dhumuclo lagu dhaabmay baa jiray dhura iyo fandhaal iyo dheeri adari baa jiray harar dhararsan iyo lool qabaxa baa jiray aqal laba dhaneedla oo la dheehda baa jiray fardo lagu kordheelo dheereeya baa jiray maantana dhigeedii waa la dhaafay tii hore waxa ay ku dhololaan dhaqanka reer galbeed iyo waxay dhaayadidaan dhejis baa la xidhan yahay timaha dhan maqan yahay dheehi baa la dhilayaa burdaha ay u halisiin daanish baa la tumayaa iyo haa guryahana dhammaanteed dhiish bay dul saareen hadda filimadu waa dhagar yaa islaan weyn oo filim kaaga sheekanaysa inantiiba xalay laga qaato kaaga sheekaynaysa filimaad arkaysaa aflaan soo korodha dhereertii habeenkii internetku waa dhaa waxaad arkaysaa internet qof ku jira wadnayaal halka la isugu wadnayaasha dhiin jara yaa waxa la isu dhiibaa wadnayaasha dhiin jara Norway buu joogay yara Soomaaliya halkaas uga soo dhigay bahal casoo dhiin jara uma faxfax dhagdhag taahaya marka hawl baa dhameystiran mobilka waa baradheer
hees dhalaaxda qaadiya qalbigu dhufsanaya maqalka dhagaha gala markii kaliya hees ugu sa ruux goboor dhawan agiisu waayay oo dhaxal wadaagtaan inta la sii raacaysaaba waqtiga ya waxa weeye maqalka dhagaha gala waa heesta ay ku raaxaysanayso message isu dirayaan iyada cajalada hadii doonaan maanta oo I love you so much baby daas ee hoosta kaaysa salaantina waa ag fadhida cajaladina waa dubaysa marka xaaladdu halkaas uu dhaqanku sidoo waaba dhabarjada Allah ayo wax noo dhici wax la dhalaan war dhigay Allah ayo nala dhumin Allah ayo dhabada khayr nagu soo dhaweeyo qalbigooda dhaymiyo iimaan dhowre eebo haduu qoysku dheeliyo ma dhisnaada qaranka waxay dhaabatay tahay dhanka looga soo dhacay dhinaceena weeye hada waadayadii habra aan is dhowrano dhaba hadii kalena dhiladu way noo dhaxaysaa isir dhumawiye weeyaan wixii aad u dhimatay abu afusiye aad baad u mahadsantahay ma sha Allah waxaan filayaa bulsho badan oo daawanaysa in arintaasi ay u noqon doonto wacyigelin dhameystiran suugaantu inta badanna ay u tahayba udub dhaxaad ilaalinta afka iyo dhaqanka meelaha uu Soomaalidu ay ka burburtay dhaqankoodu uu ka lumay waxa kamid ah ama dhibaatadu ay ka soo gaadhay afkii Soomaaliga afkii hooyo waxa laga yaabaa maanta dhalinyaro badan oo Soomaaliya su'aalahan inta badan hadii la weydiiyo ku saabsan suugaanta ama dhaqankii Soomaalida inay garan waayaan hadii la yiraahdo qaar kood ray iyo baarqad ay kala saari waayaan aaran iyo maqal ay qaar kood isku khaldaa waxa la oran karaa 80% Soomaalidu waa dad xoolo dhaqata kabad iyo alool ayaa kamid ah waxyaabaha dad badan hadii maanta aad weydiiso ay isku khaldayaan waxa kamid ah qaabkii habla la isu weydiisan jiray oo kale oo tusaale ahaan qaabkii loo kaftami jiray iyo dhaqankii hore isbedel weyn baa ku dhacay xurmayn iyo qiimayn iyo kala xishood ayay bulshadaasi kala mudan tahay marka inantii sawirkii la soo dhigay inankii oo la yiraahdo bariba ismehersanaya dhaqankii hore Soomaalida iyo dhaqankaas maanta halku maray markay eegno ma jira wax suugaan oo aad ka tirisay dhaqanka noocaas ee dhalinyarada ay bedelay horta dhaqanku wacdigu la socdaa waayuu la socdaa guurkuna dee guur badan buu ahaayo berigi hore guur doonisa buu ahaayo guur inanta loo dadab gala uu lahaayo guur dhabar garaaca baa jiro guur doonisa baa jiro guur lala tagaa jiro guur qasaba baa jiro guur dumaala baa jiro guur xigsiisa baa jiray dee maanta way isbedeshay ma garata aba idin gadlaa jiro fiisa lool baa jiro meershadi baa jiro shardi dalaaq baa jiro khudbad sireed baa jirto faadmo soom baa jirto iyo Facebook iyo qaar kale badan waxaan barnaamijyo badan aan biidnillaahi kariim ka diyaarin doonaa waan ku eegi doonaa qaybahaasi Cali Daar Maxamed Boos barnaamijka bandhiga TV-ga Universal Pro